maanta waxaan ka hadlaynaa 5 xaaladood oo cudur walba aad uga hortagi karto. Marka hore haddii aad ku cusub tahay channelkeena subscribe share garay qaybta hoose waxa aad noogu reebi kartaa ra'yigaaga. waxaa jira dhowr xaalad oo aad uga hortagi karto xanuun walba haddii aad dadaal badan aad samayso. arrimahan waxa ay isugu jiraan kuwo juhdi ama dadaal u baahan iyo kuwo isxisaabin iyo iska warqabid u baahan. tusaale ahaan waxaa jira xanuuno qaar oo qofka u soo dhuunta marka uu sameyn waayo jimicsi badan iyo xanuuno qaar oo dadka u soo dhexmara cuntooyinka ay isticmaalayaan. si aad u hesho caafimaad wanaagsan iyo jir isku dheelitiran waa inaad bixisaa dadaal badan oo noloshaada horena aad wax badan ka beddeshaa. haddaba halkan waxa aan idinkugu soo gudbinayaa 5 xaaladood oo muhiim u ah qofka bini'aadamka ah isla markaasina haddii 5tan xaaladood uu ku dadaalo cudur walba oo jirkiisa ku dhici lahaa ama ku soo food lahaa uu ka hortagayo. qodobka koowaad daawadayaal waxa uu yahay cabitaan badan. cabista cabitaan aad u badan maalinkii adiga oo aan u baahnayn waxa uu korinayaa caafimaadka guud gaar ahaan caafimaadka qaybta kelyaha. saarista sunta ee jirka, fuuq celinta jirka sababta oo ah jirku waxa uu ka samaysan yahay 60% biyo. waxa uu hoos u dhigaa heerkulka jirka sababta oo ah marka aad dhidido ama aad neefsato waxa uu luminayaa jirkaagu biyo. biyuhu waxa ay ka ilaalinayaan xubnahaaga dilaaca iyo naabta balqiyaas marka aad oonto sida aad noqonayso iyo sida ay noqonayaan indhahaaga, afkaaga iyo sankaaga. waxa ay qayb ka qaadanayaan dheefshiidka iyo maalinkii raashinka uu jirku u baahan yahay inuu dhuuqo. biyaha sidoo kale waxa ay kaalin weyn ay ka geysanayaan in cuntada gasha calooshaada ay jilciyaan isla markaasina cuntadaasi marka dheefshiidka ay aado si fudud oo aad u dhib yar loo burburiyo. biyuhu sidoo kale qofka waxa ay faa'iidada ay u leeyihiin ka mid ah in uu soo saaro dhidid badan iyo inay ka timaado kaadi kuwaas oo dhammaantooda ah wasakh jirka ka soo baxda. sidoo kale qofka marka aanu biyo badan aanu cabin waxaa xitaa suuragal ah in saxarada ay ku adkaato isla markaasina bannaanka aanay soo bixin. intaas oo dhan waxay soo jiidayaan xanuuno kala duwan iyo weliba dhibaatooyin guud ahaan jirka aad u soo jiidayso. cabidda biyaha caadiga ah ee watarka ah ayaa ah kuwa ugu wanaagsan ee qofka uu cabi karo, laakiin biyaha inta badan la sokoreeyo ama kuwa soodhada ama cabitaanada kale ee biyaha ah ee sokorta ay ku jiraan kuwaas jirkaaga dhibaatooyin badan ayay u keeni karaan. waxaana inta badan dadka lagula taliyaa inay yareeyaan cabista cabitaanada qasan ama kuwa biyaha sokorta ay ku badan yihiin. inkastoo sokorta gebi ahaan aanay la ammaanin haddana dhibaatooyin weyn ayay u keeni kartaa jirka bini'aadamka. waxaana dadka inta badan loo sheegaa in biyaha caadiga ah ee watarka ah ay isticmaalaan ama biyaha caafiga hadba sida aad u taqaano. qodobka labaad waxa uu yahay cun raashin qolof leh. raashinka qolofta leh waa cunto caafimaad qabta waana cuntada keli ah ee aad ka heli karto nafaqo isku dheelitiran iyo wax walba oo uu jirkaagu u baahan yahay. cuntadan qolofta leh waa meesha aad ka heli karto faytamiinada noocyadooda kala duwan, macdanta sida ironta. sidoo kale waa cuntada keli ah ee dheefshiidka caafimaadkiisa ilaalin karta sida socodka caloosha. cuntada qolofta leh waxa ay ka ilaalinaysaa jirka dhiigkarka, sokorta, kolestaroolka, wadna xanuunka iyo xanuunada kale ee la mid ah. waxa ayna jirka ka saaraysaa sunta noocyadeeda kala duwan. inta badan raashinka qolofta leh ee beeraha ka soo baxa ama dalagyada caadiga ah sida cambaha, mooska iyo waxyaabaha kale ee la midka ah ee qolofta leh ayaa sidoo kale waxa ay leeyihiin faytamiino kala duwan waana borotiin qaarkood isla markaasina jirka faa'iido weyn u soo kordhinaysa. sidaasi si la mid ah cuntooyinka aan qolofta lahayn ayaa mararka qaar waxaa iyagu ka dhex iman kara xanuuno kala duwan isla markaasina wasakh ayaa gaari karta waxaana wasakhdaasi ay usii gudbi kartaa jirka. dhibaatooyin kalena waa ay iman karaan. cuntada qolofta leh sida aan sheegay waxay ka ilaalinaysaa jirka xanuunada sida dhiigkarka, sokorta, kolestaroolka, wadna xanuunka iyo xanuuno kale oo kala duwan. aad ayayna muhiim ugu yihiin guud ahaan jirka bini'aadamka.
qodobka saddexaad waxa uu yahay samey jirdhis inta aad awoodo. aalamiitadu waxa ay u leedahay jirka faa'iido caafimaad oo aad u sareysa qaybihiisa kala duwan sida qaab dhismeedka maskaxda iyo qalbiga. waxay siinaysaa jirka farxad, waxa ay kor u qaadaysaa aqliga, waxa ayna yareynaysaa walbahaarka, walwalka iyo isku buuqa. waxa ay xadidaysaa miisaanka jirkaaga, waana halka keli ah ee miisaanka lagu rido si jirka uu uga gaashaanto xanuunada soo wajaha. aalamiitada jiimka ama exerciseka guud ahaan dabaasha iyo weliba in kubad la ciyaaro ama sportis ayaa ah dhammaantood kuwa jirka firfircooni siinaya islamarkaasina kor u qaadaya niyadda qofka bini'aadamka. aalamiitadu waxa ay wanaajinaysaa murqaha iyo lafaha, waxa ayna qayb ka qaadanaysaa ka faa'iidaysiga jirka ee borotiinada si murqaha ay u dhismaan. waxa ay kor u qaadaysaa awoodda jireed, waxa uuna awoodaa qofka jirkiisa dhisa inta uusan awoodin qof kale xoog ahaan. waxa ay sare u qaadaysaa xusuusta caafimaadka maqaarka, ka hortagga xanuunada, helidda hurdo caafimaad leh iyo ugu dambeyn taran si wanaagsan u shaqeeya. jiimka ama jimicsiga ama exerciseka ama dabaasha ama sportiska qaybihiisa kala duwan dhammaan waxa ay yihiin jirdhis aad u wanaagsan, waxa ayna qayb weyn ay ka qaadanayaan taranka qofka iyo weliba in uu qofka soo saaro haddii uu rag yahay biyo ku filan, islamarkaasina gabadhu waxa ay ka caawinaysaa in jirkeeda firfircooni gaar ah ay hesho. waxa ay sidoo kale ay caafimaad wanaagsan ay siinaysaa murqaha iyo isku dheelitirka guud ahaan jirka, waxaana qofka uu awoodaa in jir ahaan uu u dhismo islamarkaasina murqo adag oo awood leh ay ka soo baxaan. waxa ayna sidoo kale caawinaysaa qofka in uu fahmo muhiimadda jiimka ama jimicsiga guud ahaan uu leeyahay. qodobka afraad waxa uu yahay ha isticmaalin daawo aan dhakhtarku qorin. daawooyinkan dhakhtarka qorin ee laga yaabo in qofka mararka qaar uu isticmaalo in ka badan xaddigii uu qaadan lahaa ama loo isticmaalo xanuun aan qof haynin, waxa ay keeni karaan xanuuno halis badan oo aan laga kabsan karin sida kusumoowidda dawada laftarkeeda, dhaawac ku yimaada xubnaha jirka oo ay ugu horeeyaan beerka iyo keliyaha. daawooyinka qaar waxaa laga sameeyaa sun, waxaana suntaasi haddii in ka badan intii loogu talagalay qofka uu isticmaalo ay imaan karto inay disho. waxaana dadka qaar sidoo kale ay isticmaalaan dawooyin aan dhakhtar u qorin oo iyagu inta ay tagaan goobaha caafimaadka soo qaata, waxa ayna daawooyinkaasi aysan ogeyn halka loo isticmaalo iyo sababta loo isticmaalo. waxa ay sidoo kale daawooyinkaasi ay kor u qaadi karaan fursadda ah qofka inay xanuuno kala duwan jirkiisa ay u yimaadaan. daawooyin aan dhakhtar qorin ee laga yaabo in qofku mararka qaar uu isticmaalo in ka badan xaddigii uu qaadan lahaa ama loo isticmaalo xanuun aan qofka haynin, waxa ay keeni karaan dhibaatooyin waaweyn. waxaa la arkayaa dadka qaar oo daawooyinka la isku cayiliyo isticmaalaya, kuwaas oo aan dhakhtar u soo qorin laakiin ugu dambeyn u geeriyoonaya xanuuno ku dhaca beerka, keliyaha iyo wadnaha. waxaana inta badan big power kaniiniga la yidhaahda iyo kuwo kale oo la mid ah oo aan casharo kale ku soo qaadan doono oo dadka ay isticmaalaan inay xanuuno badan ay ku ridaan. qodobka ugu dambeeya ee ka midka ah 5 xaaladood ee aad cudur walba uga hortagi karto waxaa la yidhaahdaa ku dadaal nadaafadda guud ee jirkaaga iyo maskaxdaada. dhammaan hareerahaaga waxaa ku nool bakteeriyo noocyadeeda kala duwan. haddii aadan taxadirin waxa ay kuu dhuuman karaan, sidaana ay kugu waxyeeleyn karaan bakteeriyadaasi. waxaan isticmaalnaa suuliga kadibna marka aan xaajadeena soo dhammaysano gacmaheena iskama dhaqno ama kuma nadiifino oomo ama saabuun. sidoo kale waxaa laga yaabaa in moobeelkaaga uu ku dhaco suuliga dhexdiisa, markaasna aadan nadiifin adiga oo soo qaadanaya kadibna biyo yar marinaya. sidaas ay marar badan ay kugu dhacdo waxa ay keeni karaan xaalado khatar ah oo dhimasho xitaa keeni karta. waxaana sidaasi kugu soo dhuuman kara bakteeriyada, islamarkaasina muddo aad u dheer ayay kuula noolaan kartaa, waxaana dhuumashadaasi ay keeni kartaa mar dambe in xaaladaada khatar ay noqoto. sidoo kale waxaan isticmaalnaa fure, saacad ama agab kale oo aan maalin walba adeegsano annaga oo aan iska jeermis dilin. ogow, tallaabo walba ka hortag ayaa ka wanaagsan. waxaana inta badan sida furaha moobeelada, suulida
iyo waxyaabaha kale ee la midka ah ama meel kasta oo aad taabato kaasoo raaci kara bakteriya kuwaas oo kuu dhuuman kara. waxaana inta badan ku dadaalidda nadaafadda ka mid ah in marka qofka uu wax cunayo ka hor inuu gacmaha iska nadiifiyaa si fiicanna uu isaga jeermis dilaa kadibna cuntada uu aadaa. marka cuntada uu dhammaystana waxaa muhiim ah in gacmihiisa uu sida ugu wanaagsan u nadiifiyo. marka aan suuliga ka soo xaajo gudano waxa ugu wanaagsan ee aan samayn karno ayaa ah in oomo iyo saabuun aan ku dhaqno gacmaheena si aan caafimaadka guud aan ugu dadaalno. maxaa yeelay bakteeriyada ka soo raaci karta halkaasi gacmaheena ayaa ka badan kuwa aan ka fikirayno. malaayiin bakteriya ah ayaa had iyo jeer ku hareeraysan goob kasta oo aan joogno ama aan taabanno. ku dadaalidda caafimaadka guud ayaa ah waxa ugu wanaagsan ee aad uga hortegi karto xanuun walba. waxaan filayaa daawadayaal inaad hadda fikir fiican aad ka haysataan 5 xaaladood ee aad cudur walba uga hortegi karto. waxaa jira dhowr xaalad oo aad uga hortegi karto xanuun walba waa haddii aad dadaal badan aad samayso. arrimahan waxa ay isugu jiraan kuwo juhdi ama dadaal badan la geliyo iyo kuwo maskaxeed oo loo baahan yahay in qaab nololeedkaada aad wax ka beddesho islamarkaasina aad dib ugu noqoto. 5 xaaladood waxaa ka mid ahaa: 1. cabidda biyo nadiif ah oo caadi ah, cunista raashinta qolofta leh, samaynta jiradhiska awoodeed, iyo inaad iska joojiso isticmaalidda dawo aan dhakhtar kuu soo qorin, iyo ku dadaalidda nadaafadda guud. waxaan filayaa markan inaad fakar fiican aad ka haysataan. daawadayaal, haddii aad ku cusub tihiin janaalkeena, subscribe dheh, share garay qaybta hoose waxaad noogu reebi kartaa ra'yigaaga.